marka waxa weeye waxa tiri rajo kama qabin waad quusatay maxaa sababay inaad quusatid atu ka soo waayo qof reerkiisa joogin iyo qof reerkiisa joogo isku mid maaha waa qadar ilaahay ilaahayna ka soo waaray waan doonayaa insha Allah imika inaan eegun doonayaa inaan tagun doonayaa waa Allah leh waan ku dhaqaaqomayo musliimta meel kastoo joogto naga soo gaaraan ku oranaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan la joogaa walaalkeen maxamed muuse gamteesa oo 20 sanadood xidhnaa intii u dhaxaysay 2001 2022 shalayna soo baxay allah mahadi waxaan doonayaa dhowr su'aalood inaan weydiiyo walaalkeen maxamed oo ku saabsan waayihiisii xabsiga ehelkiisii iyo goortu ka yimi iyo wixii war maxaa ugu dambeeyay qorshihiisa mustaqbalka waxaan doonayaa marka hore inaan ku bilaabo xagga ehelkiisa doonayaa ehelkiisa maxamedow waxa tahay nin oromana waa balaaran tahay ka halkee baa tahay oromada magaalada deegaankee deegaanka jimma baajifar waleela waxa la yiraahdaa jimma baajifar xagee ku taala jimma hadda sabab ka sheeya sabab ka sheeya xagee bay sii xigtaa xagga suudaaniga xagga suudaan bay sii xigtaa waan gartay marka magaalada gudaheeda deganeydeen mise waxaad ahaydeen beeratada ahaydeen may wali magaalada jimma ku dhaabisay dhowr magaalo ku igaawo an ka baajima xagga shiishe wayaan meel bunka wala ku beero meel bunka lagu beero marka waxa ahayd dad waxaad ahaydeen meel tuulada joog tuuladina maxaa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa gaatla wala yiraahdaa ma sha Allah gaatla waxa weeye jimma ayaan magacaasna waan maqlay aniga laftaydu waxa weeye waa magaalo mise waa gobol waa isli Hargeysa kale uu noqonaya waa magaalo waan gartay goorma kugu dambeysay ehelka xabsiga ma kugu soo booqan jiray maya imika inta 2000 intan ka soo baye 2001 waa la soo qabtay xabsiga waa la yidhigay reerkaygi ma arkin maxaa dhacay waa weeye telefoon aniga xabsi ku jiro oo soo baye meelun ku ilaalu male ma argil reerka intaad ku jirtay kugu meeman may yani ka warqabin may ma magal inaan dhimtay waa lagu waastay inaad dhimatay waa la iloobiya inaan nolol lama haysto yani inaad nooshahay iyo inaad dhimatay lama oga lama oga halkay kugu ogaayeen marka hore inaan dhoofin doonayaa halka marka soo gaaro laatiga dhamaatay ani shaqayso intan gore ilaa kulme shirka shaqayso iska dhoofin gore ana shaqo bilaabe arinta afsiga soo galay marka tahriib baad hayd inaan taariibun doonaya marka ma ku ogaayeen ehelku inay soo tahriibtay may markaas ay ka dambeysay aniga ama wax kulay markaad soo baxaysay ma ku ogaayeen waxaad ku ogaayeen tahriib xagad u socotay Suudiga waayo kadibna arrin baa kula kulmay iyagu inta ma ogaadeen oo imika waxa jira dad badan oo ka soo jeeday Ethiopia warkaaga meel la gaarsiin may lama gaarsiin meesha waa afsi telefoonka meesha lama ogalo telefoonki ma soo galo meelun ku ilaalu male xabsiga lagu ogolo maxaa dawala ku qabto meel wala ku geenaya wala ku seelanaya waa qol gaar lagu xidhay telefoon way xabsiyadeed baad ku jirtay ma hal xabsiyood ku jirtay mise xabsiyo kala duwan halkan xabsigii hore waa la baabee waa la qaali 2000 Madeira waa la geeyay koobiyo 10 sano joogay Madeira 12 sano ku xidhnay 2006 baa laga qaaday xabsiga Hargeysa xabsiga waa la dhisay marka maxaa laga qaaday xabsiga waa la dhisay marka Madeira lagu 12 sanadood oo min 12 bilood soo waa gartay kadibna waxa lagu soo celiyay waa la soo celiyay 2012 ayaa lagu soo celiyay xabsiga ilaa imika ku jirto ka soo baxay waaye waxaad ka warantaa bal waayahaga xabsiga qof aan xabsiga fikrad ka haysan bal uga waran duruufta iyo nolosha halka ka jirta sawir naga sii
walaalo meesha waa cabsiyo waxaa laali waa soogal sooba loogaabti buu na siinayaa waa lanu sareynayaa meesha waa cabsi nin walba u garanayaa cabsiga waa sheeko male kii shalay oo soogale kii sana u joogo kii 10 sano u joogo cabsi waa isku midi alxamdulilah rabbil aalamiin waa ilaa maan nagina xabsiga Mandheera ka waran iyo xabsiga Hargeysa keebaa la qaatay wallahi xabsigii Mandheera biya qaraaru ku waabisa biya saa ku dilaya qof biyaha qaraara xabsiga Hargeysa way wanaagsan iyo rowda xabsi waa xabsi wanaag male xabsi waxaad ka warantaa sadaadu marna ma gooda inta ku jirtay oo ma quusatay mise rajo ayaa figu jirtay markastaba inay timaado wallahi waliga inta meesha ku jiro waan ka baayaa ma orayn ilaa inaga soo gaara alaf kama sheekayn karayo aan ka soo baa ma oran jiray anu waan quustay qaar badan meesha ku jira kuwaas waan u ducaynayna insha Allah ilaa 8 qof ku jira qaar 9 iyo 12 alhamdulilah rabbil aalamiin waa ilaa mahdi kuwa meesha ku jiro waan u ducaynaa insha Allah sida degilay ka soo saaro marka waxa weey waxa tiri rajo kama qabin waad quusatay maxaa sababay inaad quusatid atuu ka soo waayo qof reerkiisa joogin iyo qof reerkiisa joogo isku mid maaha waa qadar ilaahay inaga soo waaray nimankii shaqeeyay ilaahay baa gudiya insha Allah warba akra shaqaysto والله ما شيء كاريو كفر كيسا جوغني كفر كيسا جوغ اسكو مما كفر كيسا جوغاني قفان هير كيسا جوغني اسكو مما مساعدمتي مساوالة سيدة انتظر مسكا تشيفا انت الله نارستو وانو دعينا انت ميجي جرت الله فوق سوسارو waxaan ku weydiinayaa hooyo iyo aabbo ma nool yihiin walaalo aabbo aniga Itoobiya joogu dhintay hooyo u joogtay barigiga dambe walaalayo jooga imika war maayo markii kugu dambeysay hooyo way noolay aabana wuxuu dhintay adoo Itoobiya joogay war kama haysid laakiin hooyo war maayo waan doonayaa insha Allah imika inaan eegun doonayaa inaan tagun doonayaa waa Allah leh waan ku dhaqaaqo maayo musliimta meel kasta oo joogto naga soo gaaraan ku oranaya waan gaari ku fulu maayo aragii shaqay meesha ka soo saare waaba wadiin karam maayo waa iliba wadan karam maayo musliimta meel kasta joogto iga soo gaara waan iska tagayaa intaasaan ku dardaaramaya walaalo laakiin anu ammaan dhimto ammaan noolaad waan ka soo baye kuwa afsi ku jiro ilaa ka soo gaaro
waan u ducaynaya insha allah ama warmoonu qamaan Soomaaliya oo nuq ilaahay ka soo gaaro walaalay misaad leedahay aad ku ogeedin nolol kiishana waa aniga waa ka dadka xabsiga kugu yimaada dhaqaalaha leh dadyo kala duwan ayaa jiray arrinkaaga ma u bandhigi jirtay ma oran jirtay iga bixiya magta maxaad kala kulmi jirtay walaal waa la halin jiray qaar badan inta waan ka beenayaa oo yiri qaar ku dhintay qaar wallahi u jooga imkan waana suustaa ilaa mar ilaa halkan dhowr jeer waa la ii sheegay oo nagu waay walaalo asla walaal oo lagu waay kaygi waaska seelwan waan dooniyaa reer Soomaaliland waan sheegayaa iyo dawladda Soomaaliland nimankana habsi ku jiro amaan ala siidaw amaan dalkiisa ala helo intaas uu dardaarmaya maxaa dardaarmay isku celi amaan meel walagi amaan ala siidaw amaan dalkiisa ala helo nimanka habsi ku jiro ka soo jeedal Itoobiya ka soo jeedo ala siidaay ama dalka lagu celi ka waran markii Itoobiyaanka xagga joogay bal nooga waran yani warbixin naga sii walaalo sidee qof meesha ku jira kiisa galaa reer beereeyo reer ahmar waya kawa 19 sano ku jira mid waa ku jira sanadkii 20 ku jira qaal 12 ku jira oo kaagu jooga nimanka sidee qof meesha ku jira oo Itoobiya ka soo jeeda kiisa galaa waa reer beereeyo waa reer beereeyo raga maxaad oran lahayd والله وان ودوانيا والله لي وان قبن كرمايو